waxaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iscasilay xubintii xisbiga mucaaridka ee ucud ugu jirtay komishinka cusub ee doorashooyinka ee khilaafkoodu taagan yahay. xasan yuusuf ducaale waxa uu caddeeyey in sababta uu isku casilay ay tahay in uu badbaadiyo qaranka Somaliland, waxaana uu saaxiibadii ay ka wada tirsanaayeen komishinka doorashooyinka uu ugu baaqay in ay iyaguna ummadda u fudaydiyaan oo ay iscasilaan mar haddii cid ay doorasho u qabanayaan aanay jirin. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xasan yuusuf ducaale xubin ka mid ah komishinka doorashooyinka qaranka ee Somaliland ahna xubintii uu soo magacaabay gudoomiyaha xisbiga ucid mudane Faysal Cali Waraabe oo aan aad ugu mahadnaqayo kalsoonida uu igu egmaday xilkaasi. haddaba anigoo sifo sharciya maray bishii November 12keedii 2020 oo golaha wakiilada cod aqlabiyada ay ansixiyeen 58 xubnood. kadib waxaa kitaab quraan haddana lagu dhaariyay November 25keedii 2020gii madaxweynaha hortiisa mudane Muuse Biixi Cabdi dhaartii dastuuriga ahayd. maalintaas waxaan ilaahay iyo ummadda reer Soomaaliya hortooda ugu dhaartay in aan daacad iyo cadaalad ugu shaqayn doono ummadda reer Soomaaliland. haddaba waxay xisbiyada mucaaradku kalsoonidii kala noqdeen xubnihii komishinka doorashooyinka qaranka ee aan ka midka ahaa, waxaana ay go'aansadeen in aanay wax wada shaqayna la yeelan. taasina waxay caqabad ku noqotay wada shaqayntii komishinka doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada, taasoo sababtay in ay mugdi gasho dimuqraadiyaddii Somaliland ee loo haweynaa, iyadoo aanay jirin wax dembi ah oo aan galay iyo sharci lagaga qaado xilka toona. waxaa arrintaasi soo dhexgalay guddi dhexdhexaadineed ama guddigaana ugu bixiyay guddiga kala dirista oo ahaa iyaguna dad iskood isu xilqaamay, waxaanay kalsooni buuxda ka haysteen dhammaan xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha. waana uga mahadnaqayaa really sida wanaagsan ee wadaninimada leh ee ay uga damqadeen caqabadaha soo wajahay muranka dheeraaday iyo xal u helista arrimaha doorashooyinka. go'aamada ka soo baxay guddigaasi waxay haddaba noqdeen kuwo ama kaagii yaabgeliyey bulshadii. waxay ku taliyeen, waxay ku bokootay ku dawee komishankan ha la eriyo, kii hore 2 sano lagu muransanaana ha la soo celiyo. inkastoo aan anigu ka mid ahaa qoladii komishanka hore la shaqaynaysay muddo 3 sannadood oo ahaa IT expertka komishanka doorashooyinka qaranka, waxay ahaayeen guddidaasi really marka xaqiiqada laga hadlo guddi aad u wanaagsan oo xilkoodana si wanaagsan uga soo baxay. doorasho ka dhacda Somaliland ay qabtaan waxay doorashadii ugu wanaagsanayd oo aan lahayn wax musuqmaasuqaana ka markhaati kacayo ka mid baan ahaa. haddaba markaan eegay duruufahaas oo dhan ayaa anigoo maskaxdeeda iyo maankaygaba qabo aan cidina igu khasbin go'aansaday maanta oo ay bisha February tahay 3 sanadka 2020 in aanan qayb ka noqon doonin dimuqraadiyadda Somaliland inay mugdi gasho. waxaan go'aansaday markaan arkay caqabadaha hor istaagay doorashooyinkii iyo habraaci dimuqraadiyadeed inaan u fududeeyo dadkayga iyo dalkayga oo aanan ka qayb noqon halka horseedaya doorashooyinka iyo nidaamka horsocod ee ay Somaliland ku soo nabad iyo caanaba maashay. haddaba anigoo tixgelinaya codsigii ka yimid xisbiyada qaranka ee ay naga codsadeen inaan xilka komishinka doorashooyinka qaranka iska casilo, ugana mahadnaqayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo sharciga dalka meel adag iska taagay ilaalintiisa iyadoo aanu jirin xeer uu ku kala diro komishinka doorashooyinka qaranka. ayaa sidaa darteed waxa aan go'aansaday in aan aniga oo Xasan Yuusuf Ducaale iska casilo xilka komishinka doorashooyinka qaranka aanu hayay Somaliland. haddaba waxaan ka codsanayaa xubnihii komishinka doorashooyinka qaranka ee aanu soo wada shaqaynaynay inay iyaguna u fududeeyaan ummadda reer Somaliland una dhignuglaadaan codsigii oo ay xilka iska casilaan maadaama aanay jirin cid ay doorasho u qabanayaan oo kalsooni ku qabta shaqadooda. waa mahadsantihiin. bismillaahi rahmaani rahiim. mahadsanid mudane guddiga doorashooyinka dabcan hadda aad iska casishay. wararka qaar waxay sheegayaan in cadaadis lagu saaray sida oo kalena arrinta dhaqaale ku bixiyeen deegaanka aad adigu ka soo jeedo si aad kursiga u banayso. arrinta maxaad ka leedahay? arrintaas waa been weyn. ilaahay bayna lacagna la iskuma ballan qaadin, cid igu qasabtayna ma jirto. aniga iskay isaga casilay. ummadda reer Somaliland ayaan arkay inay u baahan tahay inay dimuqraadiyadeeda socoto, inay doorasho helaan. waxaa jira dad muddo 10 sannadood kuyuu ku jiray si ay u noqon lahaayeen xildhibaano oo ay uga qayb galaan doorashooyinka. 10 sannadood bay sugayeen. waxay 10 sannadood sugayeen wax weeye in doorasho xor iyo xalaal loo qabto. si haddaba ay u helaan doorasho xor iyo xalaal
ayaan ugu baneeyay booska waad mahadsantihiin su'aal kaliya ku raaciyo ay ma jiraan ma adiga uma saaxiibada kale waa tashateen ma xubno kale baa jiro dariiqaagan maraya maxaase istiraahen markaas waraysateen wallahi de xubnaha meesha joogan waliba iskiisii maskaxdiisii maankiisa qaba anigu laakiin damiirkaygu isiin waayay inaan sii joogo meel aan cid aan u garsoora jirin cid aan diiwaan gelin u qabtaa jirin cid aan kaarar siinaa jirin marka waxaan dareemay in ay xaaraan tahay mushaharka aan ka qaadanayo meesha marka aanay dadkii aan u garsoorayay raalliga ahayn marka aan subaxii soo kaleen xafiiskii fadhiisto iyaan u shaqaynaya Cabdiraxiin Muul Ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa.